السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان أنت كحرن سجل تيوب كسر هذا ماشي في جدته متكمدة سيدا هرود كوش شغني شغل هذا حافظه هذا ملك سيان قلت دونا حديه هرود ذلك الصومالية كوي هرود يكوي دم كل لما نبو وحى هرود كقبل قادني أنا قلت دونا أنا ورثي كمان أنا كسر قاد دونا إن شاء الله هذا وحى أسعنا متكمدة حديه هرود ذلك الصومالية نونو أنا شغلي سوولي أنا قلت دونا هدرتان وقت لو شغلي سيان قلت دونا وكنا هالكان واي وفي أيجيته يا مرينا شغلي سواتنا مركا هدرتان كل ما يورن نونو عفمتك كورن وكوفي عنها والله بقول نونو هاي عفمتك كورن وعربها حوغي ورثينا كلش ما دام أتاي حديه دلك الصومالية برسمتكي يكون هدرتان بو marka waxaan rabaa inaan wareysi kula yeesho inaan ku helayo u baahnaa nuno aad ayaan u maasantahay shaqadaada waxay soo dhamayso waan ku sugaynaa nuno inaan kula yeelanaan rabnaa wareysi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta ku xiran sagartiib waxaan leenahay soo dhawaada bulshada meel kasta aad joogtaan annaga hore waxaan kugu sheegnay ballanqaad ah inaan xidigihii hore dalka Soomaaliya meel kasta ay joogaanba guri ha noqoto shaqo ha noqoto meel kasta inaan ku tagno oo ku booqano aan wareysi aan ka qaadano ayaan u baahnaa hadda waxaa la jooga xidigihii hore ka mid ah nuno oo macnaha barasamaadkii ilaa burburka ayaan wax ku wareysan doonaa taariikhdiisa isboorti sida macnaha oo u soo maray nuno waa maasan tahay waxaan ku weydiinayaa macnaha xilliga isboortiga aad bilowday taariikhdaada ma xasuusan kartaa waqtiga ay ahayd iyo kooxihii aad ku bilowday ma xasuusan kartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعل وما هسنتهي ما دام تاريخ ظهري أما واحد سويدنا حسوس نصهي معهم وعن كبلابنا هذه دقموين عن كبلابنا دقمة وقتي دقمة نبضي عن دقموين كبلابنا دقمة بون ليرة أو ليليني بون ليرة كبعد أتا مرشجان وأوليلي هذه waxaan naqday juniorska madbacada qaranka degmada aan ka dhax galo nuno degmada wax koob ah wax guul ah ma la gaartay degmada adiga ilaa semifinal waa gaarnay marna waa qaadnay degmada san jeclahay ya bondere xaafadda ku dhalatay magacaaga saddexan nuur cumar maxamed ala yiraahdaa bondere aan ku dhashtay waxda yuusuf alkooneen waxda saddexaad okay markii aad degmooyinka iyo waxa ka soo gudubtay kooxda kugu horeysay soo ceertay kooxda ugu soo horeysay waxay ahayd madbacada qaranka aan juniorska noqday MBC club markii loo bixinay madbacada si wanaagsan ay u ka saantay waa nabad markay ahayd waa xoogaan joogay adiga waa ka tagay waxaan tagay gaadiidka aan soo ciyaaray juniors koobka juniorska gaadiidka ana ka qaadnay okay madbacada iyo gaadiidka ay sheegtay gaadiidka iyo madbacada maxaa guul ah oo soo gaartay ciyaartii kugu yaabka badneed oo kugu kuleed oo soo marto xilligaas markaas aad sheegayso gaadiidka iyo madbacada aad soo ciyaartay wax ma u sheegi kartaa shacabka Soomaaliyeed oo ku daawanayo oo meel kasta joogo annaga waxaan hore u ballan qaadnay inaan xidigaha dalka Soomaaliya soo maray inaan aruurino adiga waxaan aniga la yaab ahayd xoogaa oo final aan isla soo gaarnay koobka aan ka qaadnay Municipia kooxda Municipia naadiga Municipia final ayaa soo maataan final soo nimid eedan ka qaadnay koobka kugu horeeyay oo magaciisa horyaalka oo ahay juniorska Municipia ka qaadnay kadib xagee baad u dhacday marka adiga aan dheelnay waxa koobka aan qaadnay seera aan gudubnay seera aan ko ah 6 qafood meelahaas aan ko ah seera markaan gudubnay burburkiyaaba dhacay burburka kadib maxaad macnaha kooxda ku biirtay isboortiga ma sii wadatay mise shaqaale caadi ah sanaqatay ma isboortiga aad baa u waday umaleeyaa maya kama harin isboortiga waa daba soconay burburka markuu dhacay waa meel shaqo iyo waxyaalahaas baa aan san jirin adiga baloon meelahaas la iskaga dheelaayo burburka kadib naadiga u soo dhashay ma u sheegi kartaa shacabka Soomaaliyeed oo ku fiirsanayo nuno burburka kadib waxaan u dheelay Feyenoord waa la garanayaa Feyenoord waxaa ka horeysay Alba
alba alba kabacdi feenus ay ahayd aan u dheelnay guulaha aad gaartay iyo farxadaha iyo waxyaabaha aad kala kulantay waxaan rabnaa inaad shacabka soomaaliyeed aad u sheegto nunow maanta fursad macaan ayaa haysataa waxa ku fiirsanaya waa ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad u sheegtid guulaha markaas burburka kadib aad la gaartay iyo naadiyada usoo dheshay adiga markaa oo burburkii degmooyinka waxyaalahaasiti waa la bilaabay aal baan ku dheelayni magaca aal baan ku dheelayni anakaa qaadnay aal baa qaaday waa ku baxnay waxaan aadnay tanzania aadnay waa ka nimid tanzania wax guul ah ma ka soo gaarteen markii aad aadeen markaas waxaan ku soo harnay 5 dhibic aan kor leh aad soo harteen aan soo harnay aad iyo aad hal dheel waa badani 2 dheel bareejaan galnay adiga waa rashka ku jiray kooxa waaweyn aan magaciisa Cumar Elfis muxuu ahay nuno si fiican ayay ku kasayaan golhaye aad u macaan golhayihii qaranka dalka Soomaaliya midkii kuwa hore iyo kuwa dambaba si fiican ayay dadku ku kasayaan nuno ma ii sheegi kartaa markii aad ka tagtay naadiga hadda ay sheegayso kooxda kale oo kugu dambeysay aad u dhashay alba markaan ka tagay waxaan naqanay magaciisi Morris kooxdan Morris aad aad wala yaqaanaa ya Morris koobkii aan qaadnay ayadana waa ku baxnay waxaan markaan aan qaadnay qaran aan baxnay qaranka noogu horeeyay oo Soomaali bax oo ahay Kenya ku tagnay waa ka soo naqanay xiraan galnay naadiga Elman ya Morris koobkii aan qaadnay waa ku baxnay waa ka soo naqanay haddana Elman aan ku biirnay koobkii horyaalka ana ka qaadnay naadiga Elman waqtiga ku biirtay sanadka ku biirtay waxa u sheegtaa bulshada Soomaaliyeed 94 94 waxaan filayaa maamulka macallimiinta naadiga Elman inay kugu soo dhaweeyeen xarunta naadiga Elman markaas ayaanu ku biirtay naadiga Elman naadiga Elman maxaad adiga waa noolay markaas الله يرحمه الله يرحمه المون meeshaan ugu teegi jirnay Elman xaruntiisa meesha isbitaalka waxay markaas meehow deganaay aad iyo aad nuno waxaan ku weydiinaynaa waxa aan ka rabnaa markii aad golahayaha tahay waxaa jirta qof walba wuxuu jecel yahay nuno yaa jeclad inay garbahaaga markasta ay ka dheelaan u sheeg ummadda Soomaaliyeed garbahaaga markasta qofkii aad jeclad inuu ka dheelo oo macnaha wax ka dhici karo maadaama aad golahaya tahay adiga sidii Cumar Elfis oo kale Cumar Elfis magaciisi Daciyey شريفو عمر أكيلة عمر عبد الرحيم أروني iyo muxuu ahay asiga kan difaac ahay aad ayaa u jeclad macnaha daafacaas inay ka garba dheelaan markasto عمر أكيل iyo Senegal iyo شريفو nuno waxaan ka rabnaa oo kale inaan ku sheegno ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegto naadiga Elman guulaha aad la gaartay iyo waqtigii koobnaa aad joogtay naadiga Elman wallahi adiga 94 miyaan tagay ilaa adiga 4 horyaal miyaa aan la qaaday intaas safar aan ku baxnay ya waa qof walba waqtigiisa inuu kaalin oo ka qaato oo ummadii kala soo bixaysana inuu faaruqiyo nuno waxa jirto maadaama naadiga Elman ahayd waxa jirto weeraro aad u kulul oo naadiga kale ay u ciyaaraan yaad ka cabsan jirtay weerarada kulul ee naadiga kale u dheelayo wax ma ka tilmaami kartaa weerarada aad ka cabsan jirtay aad leeso haddii ku soo galaan gool waay ma ana wax aan horta naadi ciyaartoy oo baloon soo qaato aan ka cabsan jiray hebel aliga xiro oo qalqal igeliyo ma jiro baan ma ka cabsado macnaha naadiga leeliso ma aha naadi jircan qasab waxay ciyaartoy caan ah oo laacibin ah ay jiraan golahayaashina wali ay ka cabsadaan aniga maya aniga waxaan ku kalsoonahay difaac garabihayga joogo ya amba ku kalsoonahay wax aan balooniga markaas ay oo soo weerarayo aan ka gambahay abyaraade ma jirin inay ka dhicinayaan okay nuno naadiga Elman waxaad soo dheeshay muddo ah ay soo dheeshay koob ugu horeeyay aad qaado gormo ah والله وقتي تاريخ نانتي 95 مسكوا بقى لقد نادي المان افركو افرو ريال
afar horyaal ayaa la dabaaldegtay qaranka dalka Soomaaliya imse jeer ayaa aaday kooxda imse jeer ayay baxday naadiga Elman maxaa xusan kartaa adiga koob qaranka haddii qaado macnaha way baxaan waa baxaan haa aniga ilaa afar horyaal aan la qaaday hal horyaal aan ka haray saddex horyaal waa la baxay waa boorteedii ugu xiga miyaa baxay horyaalkaasitay waa ka haray markaasii saac ugu haray cayaaraha waaba ka fadhiisay horyaal kugu horeeyey ma xasuustaa dalka ay aadeen markaas oo baxdeen iyo wixii ay ku soo dhamaatay cayaartaasi Elman iyo macnaha محمد شيء كرتون سومالي عيار صف تام وقولت وعان زنزبار زنزبار نادي مكان كبحنا زنزبار المن ما كبدين سام شوي كبدين قاروا أنا كبدين قارنا وكبدين أنا كو شبع شن دبعو أنا كو وضن معاك لو خلصتي سفر كوغوري أتكبح ذلك معاك كوغور الله معناه كوحدك كوغوري هذا شو هذه واحد بدنا dhibcooyinkeena Soomaali badanaa waa lagu tirsadaa markaan tagno waa lagu xisaabtamaa meeshaan galno badanaa dhibcaasitay Soomaali waa lagu tirsadaa kanaalka hadda ilmaha ugu jiro ya ay fiirsadaan may waa mar sportiga markii la soo saaro aan xoogaa ka fiirsadaa markaa galabaad nuno macallina Soomaali sanadkiraad nagu dilaana sagalkii meel kasta aad joogtay Soomaaliya sidoo hore aan kugu balan qaaday in xidigii hore dalka Soomaaliya meel kasta ay joogaan gurigooda ha joogaano shaqadooda ha joogaano in aan anaga raasano oon waraysiga kaaga soo qaadno si aad u dhageysataan haddana waxaan marti yahay maanta Nuur Cumar Maxamed Nuur Cumar Maxamed nuno oo xidigii hore dalka Soomaaliya kamid ahay ilaa burburka soo gaaray waana maasantiin